بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa xoogaa yar oo update ina idinka siiyo xaaladda meesha marayso cudurka coronavirus. tirada waxay maraysaa dadka Soomaaliya dhan uu ku dhacay 165. dhimashada waxa waaye ilaa ay hadda 7 ilaahay u naxariisto intii dhimatay. 3 qof oo kamid ah 164 taasna cudurkii waa ka raysatay ilaahay waa caafiyay. wixii details ay ku saabsan isbitaalka Martini iyo inta jiifta iyo cadadooda isay kala yihiin dhakhtarka noo sheegay isbitaalka 24 saac fariisto wax ka maamula taqaatiirta laakiin guud ahaan waxaan rabay inaan idin sheego tirada inay intaas tahay. isbitaalka Martini saa la socotaan waa isbitaalka dawladda koow oo asteysay in dadka cudurka uu soo rito lagu daaweeyo haddana lagu qaado wixii sample oo dadkii baarista raba inay cudurka iska baaraan lagu ballamiyo meesha looga qaado swabka kadibna loo diro laabka dhexe ee dawladda. waxaa soo raacay isbitaalka cadadka dadka jiifo inay xoogaa yar sii kordhayaan. dad badan oo waxaa jira soo doonanaya inay isbaaraan. waa ku dhiirigelinaynaa bulshada qofkii dareema xanuunka ama iskaga shakiya ama qof qaba la falgalay fadlan inuu soo doonto soo waca nambarka 449 isbitaal Martini lagu ballamiyo kadibna takhtarka meesha jooga uu la kulmo lagu talageliyo marka sidoo uu raadsan lahaa in analysis laga qaado iyo waqtiga la ballaminayo. عدد ahaan waa taas. waxaa jira isbitaalka Banaadir in asagana la asteeyay inuu noqon doono qayb kamid ah oo laga goyn doono qaybta hooyada iyo dhallaanka ah in asagana hadii la cala tirada inta ay buuxsanto isbitaalku sariiraha yaala Martini badna waa 46 sariir iyo ICU da loogu diyaarinayo shoosheeda ay dhimantahay ilaa iyo 25 sariir laakiin la cala hadii loo baahdo in isbitaal Banaadir meel qayb ah loo gooyo irid gooni loogu furo taqaatiirta iyo kalkaaliyayaasha daaweynaya iyo agabkana uu ahaado mid u go'an. sidoo kale waxaan kulan la leeyahay mar walba oo aan wada tashi la sameynaa wasiirada maamul goboleedyada iyo caafimaadka ah iyo wasiiradii kale oo ku jira gudiyada kala duwan oo maamul goboleedka ay sameystaan. sidaad la socotiin maamul goboleedyada qaarkood wasiirada caafimaadka ayaa gudiga qaran gudiga maamul goboleed madax ka ah mararka qaarkoodna wasiiro kala ka ah laakiin waa dad wada shaqeeya. wasiirada caafimaadka wada hadal ayaa mar walba wada leenahay si aan isula soconno waxyaalaha ay u diyaarka ah waxyaalaha u qabsooma iyo waxyaalaha dawladda dhexe ay kala talin karto ama ay ka kaalmeyn karto. waxaa jira macaawinaadyo badan oo ka yimid dawlado kala duwan saaka ugu dambeysay USAID TIS+ ay soo dirtay sariiro iyo qalabkii ma aragtay gogosha ah isbitaalada iyo la dhigi lahaa. arrimahaas oo dhan waa loo wada qorsheeyaa waxyaalaha la keeno agab kasta oo loogu talagalay in looga hortago cudurka ama lagu daaweeyo waxay qayb ka yihiin maamul goboleedka qorshahan lagu qaybinayo wax allaala wixii soo gaar ama ha ahaadana qalab shaybaar ha ahaadana qalab isbitaal loogu talagalay ama agabkii lagu daaweyn lahaa. xaaladda guud waa sidaas. wixii su'aalo ah oo aad diyaaran u nahay inaan ka jawaabno aniga iyo Dr. Cabdirasaaq oo isbitaalka Martini ka falgala oo incident manager ah wasaaradana ka ah agaasimaha nidaamka caafimaad ee wasaaradda federaalka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وزيرك وزارة عافمات فدرالك دكتور فوزي هذه ومهدسنتهي warbixinta ay idin siisay hadda xarunta lagu dabiibo bukaanada la ildaran caabuqa COVID-19 waxaa lagu daaweeyaa isbitaalka Martini oo hadda ay jiifto 17 qofood oo lagu daaweynayo isbitaalka waxaa yaalo oo hadda capacity-giisu uu yahay waa maxaa la yiraahdaa 46 sariir oo sariiraha caadiga ah oxygenis leh iyo 25 sariir oo sariiraha ICU-ga ah oo loogu talagalay dadka xanuunka la ildaran
waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusi kala duwan leh waxaa isbitaalku uu soo ergaday dhakhaatiirta ka shaqeynaysa isbitaalka Rajab Tayyip Erdogan oo 10 dhakhtar oo ka shaqeynaysa qaybta gurmadka degdega ah aqoon iyo xirfad dheerna u leh maareynta dadka emergency-ga sida inay sameyn karaan intubation kana shaqeyn karaan ICU sidoo kale aqoon u leh cudurrada guud iyo cudurrada neef mareenka ku dhaca ayaa ka howlgalo 10 dhakhtar ah iyo 15 dhakhtar oo hore u joogtay 25 dhakhtar iyo 40 nurses ayaa isbitaalka hadda ka howlgala iyagoo 24 saac shaqadaas wada isbitaalka waxaa inoo joogto oo rigli ku ah 6 ambulance oo magaalada Muqdisho dadka jooga 24 saac u kala gurmada u kala goosha waxaan aad u qiyaasaynaa xanuunka inuu soo kordhayo loona baahan yahay in xarumo kale la helo magaalada Muqdisho waxaa loo calaameeyay haddana isbitaalka Banaadir oo qayb ka mid ah loo asteeyay inay noqoto lagula tacaalida COVID-19 waxaa lagu diyaariyay 250 sariir iyo 50 sariir oo loo diyaarinayo inay ICU noqoto isbitaalka Banaadir waxaa asigana maalmaha soo socda laga hirgelin doonaa 300 sariir oo COVID-19 ah gobolada dalka sida wasiiradda sheegtay maamulada caafimaadka ee dawlad goboleedyada wasiirada iyo agaasimayaasha guud waxaan leenahay wada shaqeyn iyo shirar iyo korjoogteen joogto ah magaalooyinka Baydhabo iyo Gaalkacyo iyo magaalooyin kale waxaa laga hirgeliyay isolation centers oo meelaha xarumaha lagu la tacaalayo dadka xanuunka COVID-19 uu soo rito iyadoo hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caawiye ay nagala shaqeynayaan oo qalabeynteedii ay socoto adeegyada iyo qalabka wasaaradda federaalka soo gaarana markii BBE iyo waa loo qeybiyay maamul goboleedyada haddana waxaa loo qorsheeyay qalabka ka imaaday dawladda Mareykanka gaar ahaan sariiraha in dawlad goboleedyada dhan la wada gaarsiin doono isbitaalka Martini waxaa yaala 12 ventilator oo loogu talagalay in ay dadka aadka u ildaran ICU gala ugu caawiyo sida aad ogtiin adduunyada dhan oo ventilatorka hadda issue ka yahay isagana isbitaalka hadda ka howlgala ka shaqeyn doona oo la tijaabiyay sidoo kale waxaa la hirgelinteeda socotaa qorshihii comprehensive ka ahaa oo ay dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka wada shaqeynayeen oo ka hortaga ah si joogto ah waxaa u socda wacyigelinta oo la gaarsiiyay degmo walbo ayada oo fariimo tififtiran loo mariyay dadka baahiyaha gaarka qaba kuwa xanuunka u nugul iyo sidoo kale fariimo la xiriira wacyigelinta ka hortaga iyo fariimo la xiriira dadka habka ay u adeegsan lahayn inay baaritaan ka sameeyaan xanuunka waxaa hadda uu ku baahay bulshada awoodda iyo capacity-ga baaritaanka sidii la rabay weli ma aha laakiin waxaa mar walba la dhiirigelinayaa qof walba oo xanuunka calaamadihiisa dareema inuu la soo xiriiro nambarka 449 oo baaxadiisa la balaariyay wada shaqeyntiisa ay dad badan institutions badan ka wada shaqeeyaan maalinkii ay soo wacdaan 100,000 oo qof oo Soomaaliya oo dhan ka soo waco ayadana la analyze gareeyo loo gurmado dadka u baahan gurmadka degdega ah nambarka 449 soo waco dalka oo dhan wali waxaa dawladda ay adkeynaysaa in aad loo ilaaliyo contactiga oo xanuunkan waa xanuun aad u faafa oo safmar ah oo xanuun ay aad u sahlan tahay inuu qof walba ku dhaco gaar ahaan dadka nugul ee xanuunada comorbidities-ka qaba ayagana sidoo kale uu saameyn karo sidaas marka mar walba waxaa la dhiirigelinayaa in la joojiyo isku imaatinka is-salaamidda iyo contactiga oo sahli karta xanuunka inuu degdego waxaan aad u jeclaan lahaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka ee dalka oo dhan waxay u furan yihiin in dadku u adeegaan qof kasta oo u imaado oo adeegyadii xanuunka caafimaadka qaba waxay mandate ama waajib ku ah